ayaa hadda ka hor aad ugu dadaalay mar sidoo uu la kulmi lahaa filosoofkii reer Greek ee Socrates. Baadigoob u galay dabadeed waa ay wada kulmeen inankii yaraa ee Socrates. Inankii yaraa gal dheer oo su'aalo ah ayuu ku dul akhriyay Socrates. Su'aasha ugu muhiimsan uu weydiiyay waxay ahayd waa maxay sirta guushaada? Waa uu la qaboojiyay mudane Socrates da'yarkii guusha baadigoobi jiray waxa uuna ku bilaamiyay meel webi ah si uu jawaab uga helo su'aasha miisaanka culus ee uu miiska soo saaray inankii yaraa. Geed har wanaagsan leh oo webiga kaabiga ku hayo ayuu hoos jiibsaday da'yarkii guusha baadigoobi jiray. Waqtigii balantana waa uu ka soo hormaray waxa uuna diyaar u yahay duruus la xiriirta guusha. Da'yaroo inankeen aan webiga wada galno ayuu Socrates hurdada kaga kiciyay inankii yaraa. Haye mudane iyo tilaabtiisuba waxba uma aysan dhaxayn. Haye maxaad dareemaysaa ayuu Socrates ku yiri inankii yaraa. Mudane biyaha oo na jiidanaya ayaan arkaa. Haddaba indhaha xir oo gacmaha xagga dambe mari. Da'yarow markiiba Socrates xooggiisa oo idil ayuu isugu geeyay da'yarkii oo xagga hoose ee webiga ayuu quusiyay oo uuna muddo ku hayay iska caabin iyo hadan uu galay. Da'yarkii waxba kumay kordhin ilaa uu quus ku gaaray nolosha. Da'yarkii oo neefta ku yaraatay ayuu dibadda u soo saaray Socrates. Mudane iyo hadallo kale oo neef badan gadaal ka riixayso ayuu iska daba yiri miskiinkii yaraa ee dhimashada ka badbaaday. Aamus ee ii sheeg waxa aad ugu baahi badneed goortii aad ku hor jirtay biyaha. Hawo ayaan ugu baahi badnaa ayuu yiri. Haddaba sirta guusha waa sidaas. Marka aad guusha u raadinayso si aad u raadiso neeftaada marka ayaa guuleysanaysaa. Sirtuna waa taa sida dabka yari uusan kuleyl badan u lahayn sidaas la mid ah ayay himada yari aysan u dhalin karin guul wax ku ool ah. Haddaba daawada dulucda sheekada waxay tahay inaan yeelano himad iyo rabitaan aad iyo aad u xoog badan haddii midkeen doonayo guul nooc doonto ha ahaatee. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa.